السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاashaynu macayma kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan ka hadlayaa bakteeriga H pylori la yiraahdo inta badan dadka caloosha kaga dhaca waana bakteeri aad u xun hadana qofku iska daweyn uma wanaagsano waxyaabo badan saameeyna badan buu keeni karaa oo bogta caloosha ayuu bog ku sameeynaya ciladaas oo u baahan inuu qofku dhakhtar u tago si uu u helo daweyn fiican qalab baa lagu dhaadhicinaya wala soo ogaanaya markuu haaru dareemo sababo badan qofku isku arki doona waxyaabo fara badan buu isku arki karaa markuu isku arko waxyaabadaas inay calooshiisu olol badan ka baxayso hadduu doon imaad aragtay labo isku arkaya goox badan inay digestive sameynayna dibrayso kale oo dibra fara badan wuxuu isku arkayaa inuu afkiisa soo urayo kale maadaama calooshu sidii la doonay u shaqeynay bacteria ku jiro amba gas amba waxa la yiraahdo acid citric ku jiro inta badan iyo afka waxa ka imanaya weysleyn waxa kale jiro qofku inuu isku qaarkood isku arkaan dadka anemia oo kale inay dhig la'aan oo kale waxyaabo fara badan heerad cuntada la qiweedo oo calalin karin marka waa inaad dhakhtar sida ugu degdeg badan la xidhiidhid si dawooyinkaaga aad u qaadatid dawooyinkaaga aad la socotid inay heerad gaadhay inaad dawadii ay wax ku tartay oo ay bakteeriga ka baxday inaad saa kaga hadhid mar walba dhakhtarka inaad daba socotid waa ku muhiim bakteerigaas aad dadkeena ugu soo badanaya inta badan caruuro badan xitaa uu ku dhaca caruurta laftigooda maaha dadka waaweyn kaliyaata markaas inaan iska daweyno insha Allah waxyaabo dabiici insha Allah gurigeena yaala oo noloshaada wax ka bedeshid iyo insha Allah ku soo diyaariyay geedkan waa geed aad u fiican bakteeriga waliba H pylori in loo sameeyo muddo insha Allah dad badan ugu caafimaadeen ma sha Allah wadanka barakaysan ma sha Allah wadanada carabtana laga keenaa akhwaati ma sha Allah وجد كدوان ما هفوحيني وجد كدوان إمك باكو خلدنا إن شاء الله وهرود سدوار كيسان مركن ومركو جد كسدو كجبحي مركنا ولا سوا بروسس جري وحلا قلت لك لقينا شاحة لو عبو ومركب مدا أي شاحة قدر سنة ساعة ما شاء الله waxaan markaa ma sha Allah kugu waan la geedkaas aad u fiican yahay afkii xitaa iyo ilkii iyo urtii oo dhan ciridka ma daragtay waxa ku dhaca marmar bakteeriya isaga laftigiisa waxa soo kale ma sha Allah aad buu qaadaa oo aad buu u fiican yahay bakteeriga ciridka ku dhaca wuxuu u fiican yahay bakteeriga ku dhaca ma sha Allah H pylori ee caloosha ku dhacda wuxuu u fiican yahay oo kale acid reflux waxyaabada ashiitada caloosha ee kugu soo noqonaysa ee kugu soo laabta ku imanaysa kor ku soo aadaysa waxa soo dhan ma sha Allah digestive oo kale sida dabshiidka caloosha oo kale markaad dabraysaa oo dabshiidkaaga sideeda u shiideen oo kale aad u fiican yahay cholesterolka hoos buu dhigaa lagama sheekeyn karo ma sha Allah aad u fiican yahay kansarkana uu la dagaalamaa wadna xanuun iyo wadna olol haddaad isku arkayso oo kalena uu fiican yahay ma sha Allah marka aad u fiican geedkan waxaan ku soo koobayaa intaas isagoo marka kanina jira anu kanina kugu lama talinayo waayo naturalka iyo boqolkiiba 90 ka fiican waxa la soo process gareey oo kanin laga sameeyay isagoo dabiici ah oo heli kara marka kaas qaadan ku dhila midda kale aan rabo inaad qaadatid waa probiotics oo aad kugu fiican waxaan rabaa saad arkaysid waa extra strong aad buu fiican hal xabad maalintii qaadanaysa kan ilmaha ilaa 12 jirka weyn baa loogu talagalay gluten free na u yahay ma sha Allah dadka glutenka vegetarian wada arkaysan ma sha Allah waxba lagu madarin waxa kale oo kugula talinaa malabkaas inuu guriga ku yaalo manaqada fiican ma sha Allah New Zealand laga keeno caanaha dad cabaysid noocaas inaad cabtid oo caanaha kale iska dhaaftid insha Allah waana sida ciirto kale u eeg oo bakteeriyana u fiican waxa kale oo kugula talin lahaa haddaad probiotic qaadanaysid inaad soo heshid xabag cadaadeena xabag cadaad aad muhiim u tahay marka la qaato bakteeriga probiotic tan habeenkii biyaad ku radinaysaa hal koob for example koobkaas aan ku soo dhigaysaa uraysaa biyaad ku shubaysaa habeenkii waad ku radinaysaa biyahaas subaxii wax yar waad qadacinaysaa dhaxantaad ka qaadaysaa ma sha Allah wad cabaysaa xitaa waxay leedahay sometimes huuba yar saad arkaysid wax yar baa ka soo dareeri doona marka la erko wad aragtay waxyaabo marka iska shaandhayn kartaa kuma fiicna haddaad doonaysid iska shaandhay insha Allah markaad subaxii biyo kale la dhigtay shaandhay ka bacdi geedkan aad buu ugu fiican yahay waxyaabada bakteerigaaga waa celery-gan cunno dhaadheer aad aragtid midhiisi weeyaan akhwaati aad buu kugu fiican marka shaax ahaan waxa rabaa inaad isaga cabtid oo kula karsanaysid maalintii xabad stars aniskaas isaguna oo bakteeriga u fiican shaax ahaan kaasaad karsanaysaa maalin aad kugu fiican yahay ma sha Allah lagama sheekeyn karo markaad shaaxaga soo karsatid kanaad ku ridaysaa 3 xabadood oo kaasaad ku darsanaysaa ma sha Allah
waxaad ka raysanaysaa waxyaabo badan jirkaaga isbedel baad ku arki doontaa midda kale shaax kalena insha Allah ku haya kana marmar shaax waxaad samaysanaysaa timirta cas waa kan timirta cas la sheego akhwaati timirta cas waatan iyo goji berry shaax baad ka dhiganaysaa maalin kana shaax ka dhiganaysaa way dhiigaagan soo celinaa difaacaagan u kordhinaya inoogatid ka bacdi kanaad ku darsanaysaa sadarkiisid markaad koobkaaga shaax soo diyaarsatid 3 xabadooda kaasaad ku darsanaysaa ما شاء الله لقى sheekeyn karo waa qaali waa sida goldigo kale is inaad wixii markuu sacab iyo degdegaad ku daweysmi looma baahna akhwaati 7 xabadood ka tirso amba 3 xabadood ka tirso sida sunnah samee insha Allah aad buu qaali u yahay marka saan kala loo soo sameeyo kasi process uu qaali geedkan lagama sheekeyn karo ma sha Allah goji berry-guna difaac fara badan buu ku siinayaa energy buu ku siinayaa timirtana anemiyada ka ilaalinaysa waa timir loogu talagalay shaax in laga dhigto la kariyo suubka maraqana waa lagu kariyaa aad u fiican tahay waxa kale jirkaaga u baahan yahay vitamin C buu u baahan yahay vitamin C ga aad inaad ma sha Allah u isticmaashid wuxuu u baahan yahay vitamin C jirkaaga marka kaamugaad soo iibsanaysaa aad buu vitamin C u yahay marka shiidanaysid babaaydo kale ayaad ku darsanaysaa ما شاء الله عصيرك أشيدنيسي green apple كوكل مركز أشيدنيسي وكتر سنيسا وفي عام ما شاء الله لقى مش هيكين كرو مركا عشكو دايما لعنا تساقنا سويب ست إن شاء الله سانا سميسيت وحيابا بربضن أو حجرتا ديتوكس جركاقا إنا نظيفيسيت ويكيس مر كان واحد وبا هانتهي هل قادو كرياتا إنا كوب كل شبتيت كوب بيه بدنا وصاصة كوب كاس آيات ما شاء الله lagama sheekan karo koobka biyaha ayaad ku shubanaysaa hal qaado taas ma sha Allah cagaarkaas ayaad hal qaado kaga shubaysaa koobka biyaha waa inuu koobka weyn noqdo wad cabaysaa detox jirkaaga soo nadiifinaysaa hadii urkii afka ka imanayay urtii oo dhan waxyaabaday ku keentay ma sha Allah ee bacteria ku keento oo dhan bay ka saaraysaa aad ugu fiican tahay ma sha Allah si fiican ma sha Allah wakaas الفافا وجد إذا في عنا سيفا ما شاء الله لقى سمية جرين ويان مركا عجار ويان هل كقادو أيات قصة ثانية لقى مشي كين كرو ما شاء الله وحيا بقوا في عن بي كومبلكس كأجنا إن الإلاليس أنت بدن ضدك أنت بدن بكتيريا هي بي كومبلكس كا iyo waxyaabada uu la dagaalamo waxa kamid ah vitamin C gaaga iron taada waxaas oo dhan ma sha Allah uu kala dagaalamaya mid kale waxa jirta marmar aad calooshaadu qaadi karin waxyaabada wheat kale in laga baaraad u baahan tahay waxyaabada wheat kale ma daragtay qamadida iyo waxyaabadaas in qaadi karin baa laga yaabaa caanaha kale deeriga oo kale in deeriga caadiga looda aad qaadan karin baa laga yaabaa iska soo baaran ku dhiilaa yiiska waxyaabada la fixiyo kale inay dhibaato ku keenaysa laga yaaba dadka qaar saas u keentaa marka iska soo baaran ku dhiilaa waxa jira wax la yiraahdo tiger point oo inta badan la dagaalanta waxyaabo fara badan sida vitamin C gaaga oo kale B complex ka iron iyo hormonka dad marmar waxa weeyaan dadka thyroid ka kale menopause isku arki karaa khalkhal caadada kale isku arki karta waxyaabadaas oo dhan bay ku keeni kartaa sidaa darteed tiger point hortag bay leedahay iyada laftigeegu xanuunkan ana keena marka exercise inaad samaysid massage u khaasa jirta chiropractic la yiraahdo maskaladaadoo kale ayaa week noqonaya maskaladii waxaad arkaysaa oo iswada qabsado iswada galay oo dhibaato aad dareemaysid oo maskalkaagii in qof aad shaqaysan karin oo taa inactive firfircoonidii baa ka tagaysa meel inaad jiiftaad rabtaa hawada mareen ma aragtay qofku respirationka uu hawada qaadanayo kale inay ku xirantaad moodaysaa stress fara badan baad isku arkaysaa waxaas oo dhan tiger point baa la yiraahdaa insha Allah mar kale aan inii sharaxi doonaa tan waa step 1 oo waxyaabada inta badan ee jirkaagu ma aragtay u baahan tahay midda labaadna waxaan igu soo diyaarinayaa cuntooyinka aad cunaysiin marka waxa kamid ah haddii aan halkan ma sha Allah oo niigu soo qaaday koobkan inaad cabto subaxii ma sha Allah lagama sheekeyn karo koobkan inaad cabtid baan rabaa subax walba waa koob orange juice yaad soo qaadanaysaa orange juice-kan waxaan ku daray akhwaati waad arkaysaa wax cad maaha chia seed maaha waxa la yiraahdaa basil seed baa la yiraahdaa waa geedkan caleentiisa basilkaas aad buu ugu fiican yahay xagga salaadka oo kale aad cunaysaa insha Allah caleentiisa weeyaan waa miro yar oo madow oo u eg xabaasuuda camal oo kale marka laakiin biyaha lagu rido waa arkaysaan saa garayga oo kale noqota hadda goor videogeyga nigu tusay aad uu ugu fiican yahay ma sha Allah
marka sharaab kasta oo samaysatid oo shiidatid inaad ku darsatid ayaan jeclaan lahaa insha allah. aad uu kugu fiican yahay bahalkaasi maasha allah, waxaa la dagaalamaya isaguna. waxaad ka fogaanaysaa waxyaabada alcoholka leh sida ashiitada leh, waxyaabada madaragtay xitaa kaniinada ha isku badin, pain killerka cuntid iyo waxyaabadaas, waayo caafimaadkaaga dib uu dhigaya. intii aad la dadaali kartid la dadaal. waxa koofiga oo kale waad iska joojinaysaa, bunka, shaaxyada noocyada waad iska joojinaysaa. waxyaabo fara badan inaad ka tagtid baa la rabaa noloshaada. wax saliid lagu sameeyey iyo wax spice kulaylka fara badan leh, waxyaabadaa inaad ka tagtid oo nolosha wax ka bedeshid insha allah. isku day wanaagsan insha allah. waxaan rajeynaya inaad wax iga fahanteen insha allah. wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. wax badan insha allah waan soo diyaarin doonaa oo Hesh Gloria walaalooyin badan bay soo weydiiyey. intaasna insha allah khayr baan iga rajeynaa. waxaan iga tagayaa maasha allah in wax ka faa'iideyno. jecelahay bahalkaasi aad buu muhiim kuugu yahay akhwaati fillah. asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.